duqa degmada Gabiley Shucayb Maxamed Muuse ayaa sheegay in haddii xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley ay xilka ka qaadaan ay waafaqsan tahay sharciyada. golayaasha deegaanka xaq u leeyihiin inay isdoortaan waayo maayarada maanta jooga ee wadanka waa xubno xildhibaan ah oo aan waxba dheerayn golaha intiisa kale marka horeba runtii waxaan lahaday iyaga doortay oo halkan keenay maayar ka dhigay haddii ay ka qaadaan waa wax sharci u ogol yahay wax mushkilada oo jirtaan ma jirto ilaahay baa si uu deeyo cid maaragtay oo doonta iyo sida ay noqon doonto marka wada hadalka golayaasha deegaanka iyo runtii inta waxay guddigu tahay ama ku salaysan tahay dhabaha ama idbada oo aasaaso dimuqraadiyadda ay ku noolaanayno marka wax mushkilada iyo wax dhibaato ah runtii midna ma laha baqan runtii kama qabno golayaashu deegaanadu runtii iyaga u madax bannaan maayaradana iyaga doortay kuwa cusubna way dooran karaan wax cugdadana ma laha waayo maayaradu wada waa xildhibaano golayaasha ka tirsan marka wax cugdado ay keenaysaa haddii laga qaadiyo hadduu joogaba shalayna dee qaar baa beddelay joogay berrin qaar baa joogi doona sahan damar qaar baa joogi doona marka insha Allah annagu intaan joognay inaan insha Allah qabad iyo isu tanaasub muujinba ay tahay gudaha gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley waxa uu sidaasi ku sheegay maruu maanta warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka oo kulan wax lagaga weydiinayay mas'uuliyadiisa uu la yeeshay guddiga daryeelka hantida ee golaha wakiilada Somaliland. in ka badan 15 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa la sheegay inay wadaan mooshin xilka lagaga qaadayo duqa degmada Gabiley. Khalid Xabsi, Kalsan TV, Hargeysa.